dhalinyaro soo dhawaada waa Macalin Maxamuud. Halkan waxaynu ku baranaynaa common diseases. Common waa wax common ah mar walba la arko. Diseases waa cudurro. Disease waa cudur. S haddii lagu daro oo diseases lahana waxay noqonayaan cudurro. Yacni waa cudurrada common-ka ah ee mar walba la arko. Yes. gudahan uma sii galayno cudur walba maxaa keeno maxaa lagu daaweeyaa oo caafimaadkiisa kama hadlayno. Kaliya waxaan rabnaa magac walbo iyo cudurkiisa inaynu baran. Waa simple medical English. Okay? Erga koowaad waa malaria. Okay? Malaria. Malaria cudurkan lidinima sheega waa malaria. Waa duumo. Yes. Waa cudur ay gudbisa kaneecada. Kaneecada malaria oo kaliya ma gudbiso. Dengue fever bay gudbisaa. Chikungunya bay gudbisaa. Elephantiasis bay gudbisaa. Japanese encephalitis way fara badan yihiin laakiin Zika virus inta badan dadka malaria yaqaanaan. Malaria waa cudur duumo ah ama malaria Soomaalida qaar iska dhaxda. Yes, cudurka labaad ee muhiimka ah ee dadka Soomaalida iyagan aad uga dhaco dhaxdooda waxaa la yiraahdaa diabetes mellitus. Yes, diabetes mellitus oo loo soo gaabiyo DM waa sokorow. Yes, diabetes mellitus waa sokorow. Cudurkan inta badan wuxuu ka yimaadaa markii uu ku yimaado dhib insulinta waa dhacaan muhiim ah ama insulinta jirkaada haba gabigeedu hala waayo oo ganacda ama pancreas culays ku yimaado oo dhibaato ku timaado amaba ha soo saartay jirka hadiido waxa la yiraahdo insulin resistance. So diabetes mellitus ayaa la yiraahdaa. Sida idin soo sheegay gudaha uma sii galayno kaliya magac guud baynu baranaynaa. Basic medical English, okay? So DM ama diabetes mellitus waa sokorow. Cudurka loo isna muhiim ah ee sokorowga aan laga agweynin waxaa la yiraahdaa hypertension. Hypertension waa dhiigkar. Hypertension dhiigkar yacni inuu cadaadiska dhiiggaada uu sare maro. Cilada ay tan ugu badan ay keenaysana waa stroke inuu kugu dhaco. Stroke waa qayb ka mid ah maskaxdaada inay dhimato ama ay dhiig weyso. Stroke. Yes, stroke bay Soomaalida iska dhahdaa. Paralysis waa iska dhahdaa paralytic. Haddii aad aragtay qof lug iyo gacan qalashay oo dhaqaajin la mar qaar xitaa wajiga qayb dhan iyo hadalka dhamaad uu ka go'ay cudurkan baa inta badan u sababa stroke. Yes. Erayga shanaad oo isna muhiim ah waa asthma waa cudur ku dhaca yacni respiratory systemka waxaana la yiraahdaa af Soomaaliga neef. So qofka neefta haddii aad dust iyo walxo noocaas dhex gelisid xitaa hadduu yacni emotions fara badan uu dareemo neefta inay ku kacdaa halis. It's a very serious disease. Qofkan wuxuu always u baahan yahay daawadiisa inuu gacanta ku haysto dhakhtarkiisana uu maxaa hayday uu la socdo. Yes, marka malaria waxaan dhahnaa waa malaria, diabetes mellitus waa sokorowga, hypertension waa dhiigkarka, stroke waa stroke, Soomaali stroke ma iska dhahdaa. Cudurka shanaad ee isna aynu baranayno waa asthma, asthma. Waa tirtirayaa. Erayga lixaad ama cudurka lixaad ee maanta baranayno waa tuberculosis. Cudurkan waxaa la yiraahdaa TB. Soomaalida kaliya waxay iska dhahdaa TB. waa cudur ay gudbiso bacteria inta badan qaybaha jirka dhammaan buu ku dhacaa laakiin sanbabada ugu badan yahay. So TB inta badan sanbabada ku dhacda laakiin qayb walba oo jirka bay ku dhici kartaa. TB lafaha, TB caloosha wax walba. The only place aysan TB ku dhicin waa cidiyaha iyo timaha. Laakiin qayb walba oo jirkaada kamid ah way ku dhici karaysaa. Yes. Okay, erayga toddobaad ayna baranayno maanteeto waa pneumonia. Yes, pneumonia. So B waa silent inta lagu dhawaaqa pneumonia. Pneumonia waa infection iyo caabuq iyo xafiifasho inflammation ku dhaco sanbabada. Yes, waa cudur sanbabada ku dhaco oo wareen baa la dhahaa. I'm not sure of Soomaaligiisa. Pneumonia waa infection iyo caabuq ku dhaco sanbabada. Yes. Waxaa kaloo ina muhiim ah peptic ulcer disease. Yes, peptic ulcer disease ama PUD waxa la yiraahdo waa in ay Soomaalida iska dhahdaa gastrico. Waa in uu ulcer waa boog waa inay boog kaaga samaysmataa caloosha. Yes, peptic ulcer disease waa gaaska dadka ku dhacaya taqaanid. Yes. So qofku wuxuu dareemayaa in yani gaas calaamadihiisa inay biyo kulul ku soo laabanayaan inuu xanuun dareemayo in sometimes uu cunooyinka haduusan cunin and all those other symptoms that the doctors mention. We are not going deep into it. We are just learning English. Yes. Okay, waa tirtirayaa. Erayga sagaalaad oo isna baranayno waa heart failure. Waa qofkii inuu hal mar wadnaha istaago ama wadnaha uu hawshi gabo. Heart failure.
wadnihii baa hawsha gabayo hawshu qabto waa maxay يعني it pumps blood qaybaha jirka oo idil buu iyo wuxuu gaarsiiyaa maxaa ahayd dhiigga hadii hawshiis gabana culays baa halka ka imaanaa heart failure marka yes heart failure lastly ereyga tobnaad ugu dambeeyay baranayno obesity kan waa iska astaan cudurro fara badan keeni karayo obesity waa cayil yes waa jirkaada inuu fat fara badan ku bato excess body fat deedna waa caafimaadkaada saameeyo inta badan waxay ku yimaadaa dadka sokorowga DM ama HTN oo hypertensionka waa labada cudur oo soo baranay buu qofkan halis ugu jira laakiin cudur dhamaal hooyadiis waa cayilka obesity yes so inta ku istaajinaya I hope you have learned something until next time stay safe and God bless you ciao